bamburiyo hees ahelo iyo cayaar nabaya haybadiyo hadhaale baan kulanti wanaagsan daawadayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeeni sheekooyinka fanaaniinta iyo qisooyinka fanka Soomaalida. mahagarane waanu hawlgalaa maanta barnaamijkeeni qisooyinka fanaaniinta waxaanu ku soo qaadanaynaa fanaanka weyn Salaad Maxamed Shardi Salaad Derbi. Salaad Derbi waxa uu ka mid yahay fanaaniinta Soomaaliyeed kuwooda ugu caansan uguna codka macaan cod dahabi ah oo aad iyo aad u dabacsan Ilaahay uu ku maneestay. Fanaanka waxa uu ka mid yahay fanaaniinta fanka Soomaaliyeed iyagu soo bilaabay bilowgii lixdameeyadii xilliyo lagu eego ayuu fanka Soomaaliyeed soo galay isagoo 12 jir ah. haddaba maanta waxaynu ka sheekeynaynaa qiso ku dhacday fanaanka weyn ee Salaad Derbi. fanaanka ayaa waxa uu dhoofay waddanka Sacuudi si uu uga soo shaqeysto iyadoo xilligaasi ee dadka badan Soomaalida ay u dhoofayeen wadamada Khaliijka si ay u soo shaqeystaan. fanaanka ayaa isagu waxa uu ka mid ahaa dadkii u ambabaxay waddanka Sacuudiga si uu lacag kaga soo shaqeysto maadaama dakhliga fanka Soomaaliyeed uu aad iyo aad u hooseeyay. haddaba kolkii uu tagay waddanka Sacuudi uuna ka shaqeysanayay muddo ayaa fanaanka waxaa lagu soo eedeeyay inuu xaday dahab aad iyo aad u badan oo qiimihiisa aad iyo aad u ballaadhnaa. dadkii uu shaqeynayay ayaa iyagu fanaanka waxay ku tuhmeen dahab ka maqnaa inuu isaga gacan bidixeeyay ama gacan togaaleeyay, halkaas uu tuhunkii ka dhashay. askartii waddanka ayaa loo wacay kadibna sidaas ayaa Salaad xabsigii alanbaqada ahaa loogu dhaadhiciyay. Salaad dacwad ayaa lagu soo oogay oo ah xadooyo xoolo dadweyne isagoo weliba khiyaamay qofkii aaminay oo u shaqeynayay. waa sida lagu eedeeyay fanaanka dacwadiisana ku dhigneed. dadkii xilligaasi goobjooga ahaa ama qisadani la socday waxa ay sheegayaan in dacwadaasi ay ahayd mid sal iyo raad toona aan lahaynin, taasoo la soo dhoodhoobay laguna shabadeeyay fanaanka weyn ee Salaad Maxamed Shardi Salaad Derbi. haddaba maxkamadii la geeyay Salaad ayaa iyadu waxa ay ku xukuntay gacan iyo lug isdhaaf ah inta la gooyo welibana xabsiga alanbaqada ah la geeyo. haddaba fanaanka ayaa isagu xabsigii lagu iloobay xukunkii goysmada isdhaafka ahaa isagoona lagu fulin ayuu xabsigii waxa uu muddo 7 sano ah ku dhex qaatay xabsiga aadka xaaladiisa u liidatay. haddaba muddo badan kadib ayaa waxaa la ogaaday fanaanka Salaad Derbi inuu xabsi Sacuudi ku yaalo uu ku basbeelayo. madaxdii waddanka u talinaysay ayaa waxaa la gaadhsiiyey dhibaatada haysata fanaanka Salaad Derbi. kol uu booqasho ku joogay madaxweynaha Jaale Maxamed Siyaad waddanka Sacuudi Arabia uuna la kulmayay boqorkii weynaa ee boqor Fahd bin Cabdilcaziz ayaa waxa uu ku soo hadal qaaday xaaladda fanaanka Salaad Derbi. waxa uu sheegay boqor Fahd in waddankana xabsiyadiisa mid ka mid ah uu ku xidhan yahay uuna ku basbeelayo fanaan caan ah oo waddanka Soomaaliyeed qiimo ugu fadhiya bulshadana wax ku ool u ah. haddaba boqor Fahd ayaa isagu dadkii wuxuu amar ku siiyay in la baadi goobo xabsigu fanaanka ku jiro. fanaankii ayaa isagu la soo helay boqor Fahdna waxa uu fidiyay cafis, halkaasoo madaxweyne Jaale Maxamed Siyaad uu ugaga mahad celiyay tallaabada walaaltinimada ah iyo weliba badbaadinta fanaanka weyn ee Salaad Derbi. Jaale madaxweynaha Maxamed Siyaad ayaa isagu waxa uu qaatay xil aad u weyn isagoo mid ka mid ah muwaadiniintiisa xaalad aad u xun oo liidata ku haysato mid ka mid ah xabsiyada waddankaasi ka soo sii daayay iyadoo wax xukun ah lagu fulinin ama lagu qaadin intaba. magaalada Muqdisho ee waddanka Soomaaliya waxaa la isla dhex qaaday fanaankii weynaa ee Salaad Derbi. tuug ayuu noqday oo lug iyo gacan isdhaaf ah ayaa laga gooyay iyadoo xantaasi ee magaalada ku fiday ayuu fanaanku yimid magaalada Muqdisho. magaalada Muqdisho waxa uu ku qabtay show caan ka ahaa magaalada Muqdisho. showgaasi oo uu ku qabtay taadiyihii dadnaa ee
tuuladii isboortiga ee Muqdisho Stadium isagoo labada gacan dadka ku salaamaya ayuu soo galay showgii isagoo tusinaya inuu waxba xibin uusan lahaynin oo xibnihiisa ay dhan yihiin gacan iyo lugna aan laga goynin. hees waxa uu qaaday abwaankii weynaa Maxamed Cali Kaariye uu sameeyay oo la yiraahdo dad baa sigtay oo ka nabadgalay wareegta waa silsiladee. haddaba dowladnimadu qiimahay leedahay waxay ku tusinaysaa sida fanaanka uu madaxweyne Jaalle Maxamed Siyaad kaga soo daayay xabsiga calanbaqada ahaa ee wadanka Sacuudiga. intaas aynu ku soo gabagabeynayna qisada maanta. nabadgelyo.